السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكينا maanta waxaan ku qaadanaynaa sida loo sameeyo AI short film waliba codkii iyo muuqaalkii aad soo qaadatay aad isku lahaasin lahayd. Markuu ugu horeyso waxaa soo galaysaa TikTok ayaa soo galaysaa. TikTok marka soo gashid waxaa ku qoraysaa AI short film movies ayaa ku qoraysaa. Kadib muuqaalkii aad rabtid ayaa soo dooranaysaa oo sharta ayaa ku dhufanaysaa. Kadib waxaa leedahay copy link ayaa soo leedahay muuqaalka. oo linkiga muuqaalka ayaa soo copy garaynaysa markii aad sidaan u soo copy garaysid waxa imaanaysaa Chrome-kaaga ayaa imaanaysaa kadib waxa ku qoraysaa TikTok script ayaa ku qoraysaa kadib waxa dooranaysaa website-kan hadda calaamadan ku saaray kan ugu horeeya ayaa dooranaysaa halkan ayaa waxa ku baasti garaynaysaa linkiga aad soo qaadatay ayaa halkan ku baasti garaynaysaa waxa ku dhufanaysaa get free meesha ku qoran tahay ugu dambeyntii uu noo qoray scriptiga hoos ay u soconaysaa kadib waxa soo copy garaynaysaa qoraalka ay soo copy garaynaysaa markii aad qoraalka dhan soo copy garaysato muuqaalka waxa imaanaysaa application-ka ChatGPT ayaa imaanaysaa waxaad imaanaysaa application-ka ChatGPT kadib qoraalka ayaa u diraysaa waxa leedahay qoraalkan Soomaali igu bedel kadib wuxuu kugu bedelayaa Soomaali oo wada jeeda kadib waxaan soo copy garaysanaynaa ilaa 3 paragraph halkaan ayaan ka soo bilaaweynaa ilaa inta oo kale waa iska macquul kadib copy aan soo leenahay waxa imaanaynaa Chrome-ka ayaa ku soo noqonaynaa halka kore search-ka waxa ku qoraynaa AI voice Somali ayaan ku qoraynaa kadib wuxuu siinayaa website fara badan ayuu tusayaa website-kan ay ku qoran tahay Speechma ayaa ku dhufanaysaa webkan markii aad ku dhufatid halkan ayaa wax ku baasti garaynaysaa qoraalkii aan soo copy garaynay hadda qoraalkii wuxuu noqday 1095 waad u jeedaa inta hoos u socono waxaan dooranaynaa halkan oo country ay ku qoran tahay hoos aan u soconaynaa kadib waxaan raadinaynaa Soomaaliya ayaan raadinaynaa okay Soomaaliya waan dooranay kadib waxaan dooranaynaa midka aad rabtid adiga ayaa dooranaysaa Muuse iyo Ubax oo gabar ah iyo Muuse oo nin ah marka ani hadda waxaan dooranayaa Muuse marka Muuse sidaan u doorto kadib hadda qoraalkii inta waa ku qortay oo waa ku baasti gareeyay halkan kaliya qoraalkan halkan ku qoran kaliya inta ku qoraya oo ah 2032 okay marka sidaan u qori waxaan leeyahay generate audio ayaan leeyahay waxay rayaan sugayaa inta qoraalka ama codka uu iga sameeynayo okay uu noo sameeyay hadda codkii oo wada jeedaa AI-ga aha kadib waxaan leenahay download ayaan leenahay oo sidaas ayuu nooga degay codkeeni kadib qaybta kore searching ayaa ku dhufanaynaa waxa ku qoraynaa TikTok videos download ayaan ku qoraynaa marka sidaan u qorno waxa dooranaynaa website-dan kale waa dooran kartaa adiga jooska iska leh halkaan waxa ku baasti garaynaynaa marka linkigii muuqaalkii hore ayaan ku baasti garaynaynaa oo muuqaalkan oo hadda aan rabno inaan codkii oo aan isla haysiino halkaan waxa ku baasti garaynaynaa linkigii muuqaalka ayaan halkan ku baasti garaynaynaa muuqaalka aan rabno inaan codkii iyo aan isla haysiino marka waxaan ku dhufanaynaa linkiga kadib waxaan leenahay calaamadda download-ka ayaan taabanaynaa kadib waxa ku sii dhufanaysaa download video ayaa ku sii dhufanaysaa sidaas ayuu noogu degay muuqaalkii kadib waxa soo galaysaa CapCut-ka ayaa soo galaysaa si aan muuqaalkii iyo codkii isku lahaysiino waxaan leenahay new video ayaan ku dhufanaynaa kadib waxaan soo gashanaynaa muuqaalkii aan hadda soo degsanay ayaan soo gashanaynaa ad ayaan soo leenahay markii aan muuqaalka aan soo gashano horta waan daaraynaa muuqaalka oo waan dhageysanaynaa The man froze. His new wife just outran a high-speed train.
Then he okay hadda marka codka ayaan iska xiraynaa oo halkaan ay ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay mute click codkii markaan sidaan iskaga xirno waxaan ku dhufanaynaa audio kadib waxaan leenahay sounds ayaan ku sii dhufanaynaa kadib waxaan ka sii tagaynaa halkaan kadib waxaan ka sii dooranaynaa device kadib codkii waa kana hadda halkaan aad ugu jeedid oo waxaan leenahay ad ayaan soo leenahay ad markii aan soo dhahno halahan yar oo muuqaalka yar uu yar aamusan yahay xoogaa soo gaabinaynaa si uu macnaha muuqaalka cod ugu bilowdo isla markiiba ninkii uu istaagay wuu qalalay marka muuqaalkii iyo waxaa isku fiirinaysaa codka ayaa isku fiirinaysaa mar walba waxaan ku dhahay wax yar markii aad socotid waa daaraysaa muuqaalka meel walba muuqaalka eberka yahayna waa jaraysaa oo waa isku xogaa waa soo yaraynaysaa kadib sidan ayaad leedahay oo isku keenaysaa oo meelaha babanaan dhan macnaha waa muuqaalka waa ka soo gaabinaysaa si uu muuqaalka u noqdo mid iskeena hadda tusaale ahaan waan daaraynaa kaas ayuu xusuustay 3 irbadood oo ay siisay ayaa bogsiiyey curyaannimadiisii 2 eber sano jirtay barwaaqsaday inaysan ahayn haweenay caadi ah laakiin guurkooda marnaba looma qorin inuu dhaco abay kansar halis ah wakhtigiisuna wuu yaraa hadda muuqaalkii ayaan soo daaraynaa ninkii wuu istaagay wuu qalalay xaaskiisa cusub ayaa ka orotay tareen xawaare sare ku socda markaas ayuu xusuustay 3 irbadood oo ay siisay ayaa bogsiiyey curyaannimadiisii 2 eber sano jirtay hadda ayuu garwaaqsaday inaysan ahayn haweenay caadi ah laakiin guurkooda marnaba looma qorin inuu dhaco ninku wuxuu qabay kansar halis ah wakhtigiisuna wuu yaraa meel walba muuqaalka ama codka oo bannaan yahay waa jaraysaa kadib xoogaa waa soo yaraynaysaa kadib waa isku keenaysaa si uu muuqaalka u noqdo mid macnaha iskeena uu noqdo meelaha bannaan waa isku geynaysaa waa soo gaabaynaysaa kadib waa isku geynaysaa sidaas ayaad samaynaysaa kadib muuqaalka ayaad dhegaysanaysaa hadduu wax yar isdhadhaafiyo aad aragtid waxaad samaynaysaa codkii ayaad gadaal u yara celinaysaa kadib markii muuqaalkii aad sida aan u soo saxatid oo si fiican isku keeno oo meelaha banaanna aad macnaha ka dadaleedid aad ku dhufatid kadib isbilayda dhaadid kadib xoogaa gaabisid meelaha eberka ah aad isku geysid dib muuqaalka dhan aan soo gaabisano halahan ayaan ka rabnaa hadda marka waan daaraynaa muuqaalkii ninkii wuu istaagay wuu qalalay xaaskiisa cusub ayaa ka orotay tareen xawaare sare ku socda markaas ayuu xusuustay 3 irbadood oo ay siisay ayaa bogsiiyey curyaannimadiisii 2 eber sano jirtay hadda ayuu garwaaqsaday inaysan ahayn haweenay caadi ah laakiin guurkooda marnaba looma qorin inuu dhaco ninku wuxuu qabay kansar halis ah wakhtigiisuna wuu yaraa wuxuu rabay oo keliya qof uu guursado si uu uga eriyo nasiib xumada gabadha uu doonayay markii ay aragtay inuu naafo yahay isla markiiba way diiday hooyadiisna kama labalabayn hadda waa ujeedaa oo wuu iskeenay codkii iyo muuqaalkii kadib waa soo seefanaysaa markii aad exporti soo dhahdid ayaad muuqaalka ku dhufanaysaa oo waxaa bedeli kartaa inta dhinacaan u socotid markii aad muuqaalka soo seefatid mar labaad aad ku soo celisid kabkaadka ku soo celisid waxaa bedelaysaa audio effectiga muuqaalka ayaa bedelaysaa oo waxaa ka dhigan kartaa cod yariis ayaa ka dhigan kartaa kadib waxaa saaranaysaa music background oo sidaas ayaa TikTok ugu soo baastigaraynaysaa ama soo dhiganaysaa marka muuqaaladan oo kaleeto sidaas ayaa loo sameeyaa wax walba oo AI ku saabsan iyo video editing waxaan idinku soo gudbin doonaa channelkan insha Allah haddii aad rabto inaad barto xirfadda editingka muuqaal samaynta weliba hab sareeya ah
adigoo ku baranaysid laptop ama mobile labadaba ka rabtid waxaad ila soo xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda. mahadsanidin dhammaantiin.